Eri hore waxaa jiri jiray boqor. Boqorkani waxa uu ahaa mid dadkiisu ay ka baqaan, isla markaana ay neceb yihiin. Boqorka waxaa lagu yaqaanay inuu taaj xidhan yahay mar walba, xitaa marka uu seexanayo. Dadku waxay ku xaman jireen inuu bidaar leeyahay, ama madaxiisa ay wax ka khaldan yihiin. Hal mar oo keliya ayuunbuu taajka iska bixin jiray, markaasina waa marka uu timaha xiiranayo. Dadku waxay ogaayeen oo ay la socdeen in timajaro kasta la waayo meel uu ku dambeeyey iyo meel uu cirib dhigayba kadib marka uu galo qasriga boqorka si uu ugu xiiro. Taasi waxay sababtay in timajarayaashii ay ku yaraadaan magaalada, waxaana soo hadhay hal timajaro oo keliya oo isaguna barbarad ahaa. Haddii aad tahay daawadayaasha ku xidhan channelka, soo dhowow mar kale. Haddii aad ku cusub tahayna, fadlan nagu soo biir adiga oo taabanaya subscribe, like, jalaskana furanaya. Hana hilmaamin inaad saaxiibada la wadaagto. Maalin maalmaha ka mid ah, boqorkii ayaa u baahday in loo xiiro, kabacdi waxaa loo yeedhay timajarihii keliya ee magaalada ku soo hadhay. Markii uu timajarihii u yimid boqorkii si uu ugu xiiro, ee uu taajkii iska bixiyey, waxa buu arkay in boqorku leeyahay dhegihii dameerka. Timajarihii ayaa naxay. Boqorkii waxa uu is yidhi haddii aad disho timajarahan, cid kuu xiirta ayaad waayi doontaa. Kadib waxa uu ka codsaday inuu sirtiisa ilaaliyo oo uu u ballanqaado in aanay afkiisa ka soo baxayn sirtaasi. Timajarihii waxa uu u ballanqaaday in uu ilaalinayo sirtiisa, waxaanuu noqday timajarihii keliya ee aan la waayin ee si rasmiya uga shaqeeya qasriga boqorka. Waqti badan ayaa ka soo wareegay, welina timajarihii cidna umuu sheegin sirtii boqorka. Taasina waxay ku sababtay inuu xanuunsado oo calooshu weynaato sirta uu qarinayo awgeed. Timajarihii waxa uu u tegay dhakhtarka. Dhakhtarkii ayaa ku yidhi timajarihii, waxaa kugu ururay sir aad qarsanayso. Haddii aanad rabin inaad cid u sheegto sirta, waxaad tagtaa dooxa, waxaanad qodaa god, kuna akhri sirta aad qarsanayso, kadibna aas. Timajarihii sidii ayuu sameeyey, xanuunkii hayeyna wuu ka bogsaday. Sannado badan ayaa ka soo wareegay. Maalin maalmaha ka mid ah, nin socoto ah oo ku soo waajahsanaa magaalada ayaa soo maray dooxii. Kadibna waxa uu maqlay cod baxaya oo leh, boqorku dhegihii dameerka ayuu leeyahay, boqorku dhegihii dameerka ayuu leeyahay. Ninkii socotada ahaa ayaa soo gaadhay magaalada, waxaanuu dadka uga sheekeeyey wixii uu maqlay. Sidaasna waxaa ku faaftay sirtii boqorka. Magaalada oo dhan ayay gaadhay, waxaana caddaatay sababta boqorku taajka u xidhan yahay mar walba. Boqorkii ayaa u maleeyey in timajarihii uu faafiyey sirtiisii, waxaanuu ciidamadiisii faray in la soo qabto si loo dilo. Kadib waxaa la hor keenay boqorkii. Si lama filaan ah ayuu u maqlay boqorkii cod meel fog ka baxaya oo leh, boqorku dhegihii dameerka ayuu leeyahay. Boqorkii ayaa xanaaqay. Waxa uu markii ugu horreysay noloshiisa iska bixiyey taajka, isagoo dadkoo dhan arkayaan. Waxaanuu amray in la soo qabto dadka caayaya isaga. Timajarihii ayaa u sheegay boqorkii in aanay dad ahayn waxa uu maqlayo codkiisa, balse uu yahay geed ka baxay dooxa dhexdiisa. Marka ay dabayshu lusho laamihiisa, ayay codkaas samaynayaan. Sababtuna waxa weeyaan, markaan haysan kari waayey sirtii aad ii sheegtay, ayaan god qoday, markaasaan ku akhriyey sirtii. Sababta aad u maqlayso codka meesha fog ka baxayana waa dhagahaaga waaweyn. Alle waxa uu ku siiyey awood aad ku maqasho shacabkaaga, waxay rabaanna aad u qabatid. Hadalkaa kadib, boqorkii waxa uu ogaaday macnaha ay leedahay in aad boqor ahaato, oo ah inaad shacabkaaga ka warhayso oo waxay rabaan aad u qabato. Sidaa darteedna waxa uu sii daayey timajarihii. Maalintaa laga bilaabana, waxa uu iska daayey madaxii uu qarsan jiray, waxaanuu noqday boqor dadku ay jecel yihiin.